Fiidiyowgii hore waxaan kusoo qaatay qeybaha ay u kala baxaan fiisooyinka. Fiidiyowgan waxaan kaga hadli doonaa qeyb ka mid ah fiisooyinkii aan hore uga soo hadlay oo loo yaqaano sponsorship ama Soomaali ahaan dacwo. Dacwadu badankeen waxay tahay waa naqaanaa. Qeybtaas aan naqaano inaan ka hadlo ma rabo dacwada qeybtan fiidiyowgan waxaan rabaa inaan ka hadlo qeyb aad iyo aad noogu muhiimsan. Ugu horreyntii dacwo maxay tahay? Dacwo waxaa waayay dad isqabo oo isku dacwoonayo, dad isdhalay oo isku dacwoonayo, shaqo qof company shaqo ka helay oo sponsorship ahaan companygaas uu ku wadaayo oo waddanka sidaas ku dagaayo, iyo group 5 oo Canada ku kooban. Arrintan group 5 waa mowduuc aad iyo aad u weyn. Fiidiyowga dambe ayaan kusoo qaadan doonaa asoo faahfaahin dheeraad wato. Maadaama dacwadu aan naqaano waxay tahay, clipkan yar waxaan kusoo qaadan doonaa qeyb aad iyo aad muhiim kugu ah oo dacwadaada qeyb libax ka qaadan karta. Qeybtaasina waxa waayay sababaha fiisaha loo soo diido ama sababaha fiisaha ee u soo daahaan. Waxaad arkaysaa dadku dhahayo 3 sano sugaya fiisahayga ama 4 sano sugaya dacwadii waa iga soo daahday. Sababta ay kaaga soo daahday maxay tahay? Waxay u badan tahay qaad adiga aad sameysay inay u soo daahdo fiisahaaga. Waxaad arkaysaa oo kale dadku weydiinaya email noogu dir safaaradda. Email safaaradda haddaad u dirto kaagama soo jawaabayso. Hadday kaaga soo jawaabtane qaladaadkaagii ayay kuu sheegaysaa. Marka 9 qodob ayaan kusoo qaadan doonaa clipkan yar oo ku saabsan sababaha fiisaha loo soo diido ama sababaha ay u soo daahaan. Haddii aad 9kan qeybood iska ilaaliso waxaa hubaal ah in dacwadaada si dhaqso ay kugu soo dhammaan doonto adoo lagu diidin. Sida saxda ah oo xaqa aad u leedahay waddan walbo, dacwadu sida caadiga ah waxay ku dhamaataa 6 bilood. 6 bil wixii ka badan waa ka dacwoon kartaa. Maxkamad baad ka aadi kartaa, lawyer aad qabsan kartaa, waad weydiin kartaa sababta ay dacwadaada u soo daahday. Laakiin haddii adiga aad qaldan tahay, xaq uma lihid inaad arrintaas maxkamad geyso. Sababtoo ah qaladaadkaagii ayaa la soo bandhigayaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Yusuf. YouTube channelkaad naga daawanaysaana waa Nurami Travelers. Haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar lana wadaag saaxiibka laga yaabo inuu buufiska hayo. 9kii qodob. Qodobka koowaad waa haddii aad codsigaagii marka uu koowaad aad qalado. Waxaa ogtahay qofkii dacwo xareysanayo kow wuxuu ka bilaabay inuu form buuxiyo. Formkaas noocyo badan ayuu leeyahay. Mid waxaa loogu talagalay dad isqabo, mid waxaa loogu talagalay dad isdhalay, mid waxaa loogu talagalay dad dalxiis u socdo, mid caafimaad. Aad iyo aad ay u badan yihiin formamka. Marka adiga ayay mas'uuliyad ka saaran tahay inaad formkaagii iska saxdo oo midka saxan aad xareysato. Haddii aadan hubin inaad la kaashato dadka formka kala yaqaano. Qodobka labaad waa dukumiinti khaldan ama dukumiinti fake ah. Haddii dukumiintiyaashaada ay fake tahay, waxaa hubaal ah fiisahaaga inay soo daahayso sababtoo ah baaritaan badan ayuu galayaa ama lagu soo diidaba. Waddankaasna laga xanibo 10 sano, 20 sano ama noloshaada inta ka dhiman. Marka iska xaqiiji in dukumiintiyaashaada ay saxan yihiin. Dukumiintiyaasha badana ee Soomaalida qaldo waa dhalashada, baasaboorka iyo warqadda nikaaxa. Qodobka saddexaad, qofka kuu dacwoonayo ama adiga dacwoonayo iska xaqiiji inaad shaqaysid. Haddii aadan shaqaynin, dowladda ayaad culays ku noqonaysaa. Dowladduna sidaas ma rabto. Waxay rabtaa dowladda qof isku filan oo iskaafin kara. Haddii marka adiga aadan ahayn qof shaqaysta, ogow dacwadaada way soo daahaysaa ama waa lagu soo diidayaa. Qodobka afaraad, guri maba lihidba. Haddii adiga dacwoonaya aadan guri lahayn oo address aad leedahay magacaaga ku qoran uusan jirin, familkaaga xaggee dejinaysaa? Waa su'aalaha ay isweydiinayaan dadka fiisaha bixiyo. Marka waxaa hubaal ah in fiisahaaga ay soo daahayso ama laga soo diidayo haddii aadan guri haysanin oo familkaaga ay kugu soo degtaan. Qodobka afaraad waa haddii uusan xiriir idinka dhaxaynin. Waan soo korsaday iyo wax la mid ah badana hadda waa la diiday. Waxaa la rabaa kaliya waan isdhalnay, waan isqabnaa
ama company shaqo ayuu u socdaa qofkan. wixii kasoo haro lama ogolo. marka inaad relationship ama xiriir idinka dhexeeyo maxaa ku cadeyn kartaa? waxaa ku cadeyn kartaa waa DNA dhacaan laga qaado oo aad isleedihiin dad isdhala aad tihiin, ama aa isqabtaan. maxaa ku cadeyn kartaa inaad isqabtaan? warqada nikaax inaad geyso, caruurna aa isku dhashaan. badanaa hadda wadamanka badanaa way diideen waa isqabnaa oo kaliya oo warqad ah. qodobka shanaad waa qof da'diisa ay weyn tahay. haddii da'daada ay weyn tahay waxay u badan tahay in lagu soo diido. wadamanka qaar 18 sano waaye, wadamanka qaarna waa 21 sano. marka haddii da'daadu ay tahay da' weyn waxay u badan tahay ayadana in lagugu soo diido arrintaas darteed. qodobka 7, interviewga haddaa ku dhacday waxay u badan tahay ayadana in viisaha lagu soo diido. waxaa laga rajaynayaa qofka familkaaga aad leedahay inaad taqaanid bilaaw ilaa dhammaad. hadduu ninkaaga yahay ninkaaga inaad taqaanid, haddii xaaskaaga tahay xaaskaaga inaad taqaanid ayaa laga rajaynayaa. haddii hooyo iyo aaba ay tahay ama caruurtaada ay tahay inaad istaqaanaan waayo, dad famil ayaa tihiin, waa inaad wax walbo iska og tihiin. qodobka 8 waa qof oo aad iyo aad u xun, aan shaqaysan, aan gangster ah, wadada taagan, daroogada qeybiyo, oo dhib badan, mar walba la xiro. qofkaas dartiis visa laguma siinayo. haddii lagu sii rabo waa lagaa soo daahinayaa. waxaa ogaataa waxay dowladdu ka fikiraysaa badqabkaaga, inaa adiga aan nabad qabto, si haddii laguu geey ninkii uu asan adiga kuu dilin ama dhib kuu geysanin. marka qof dhib badan oo mar walba la xiro, dhib lagu haysto, in visa lagu siiyo ha sugin. qodobka ugu dambeeyo ee qodobka 9aad waa immigration status. qodobkan 9aad ugu dambeeyo qofka waa inuu sharci haystaa. haddii qofka kuu dacwoonayo uusan sharci haysan waa lagu diidayaa visa, sababtoo ah asiga ayaaba sharciyeysnaynba. marka waxaa muhiim ah intuusan sharciga kaa dhicin inaad dacwada xareysato. haddii uu kaa dhici rabane marka hore inaad sharcigaaga soo cusboonaysiisato, kadib aad dacwadii xareyso. 9kan qodob waxaa rajaynayaa inay ku caawin doonto, aadna ka foojignaan doonto qaladaadka dadku ay hore u sameeyeen inaad adigu kugu dhicin, oo viisahaagii aad hore ka heli doontid waqti kooban adoo lagu diidin. fadlan channelkan subscribe saar, lana wadaag saaxiibka laga yaabo inuu mardhow dacwada xareysto. mahadsanid.